sheekadu waxay ka bilaabanaysaa magaalada Tokyo ee dalka Japan, gaar ahaan isgoyska caanka ah ee Shibuya oo ay daqiiqad kasta maraan kumanaan qof. Waa taxane aad u xamaasad badan oo dadka qaar ay ku tilmaameen inuu ka khatar badan yahay filimka caanka ah ee Squid Game. Magaciisu waa Elias in Borderland. Maanta waxa idiin soo gudbin doonaa xalqadii ugu horeysay. Waa sheeko aan lahayn meel looga neefsado, talaabo kastana ay tahay halis. Waa maalin mashquul badan, laakiin 3 dhalinyaro ah ayaa nolosha ka dhacsan. Ugu horreyn waa Arisu. Waa wiil dhalinyaro ah oo qoyskiisu ladan yihiin, laakiin isagu shaqo la'aan ah. Maalintiisa oo dhan wuxuu ku lumiyaa video games. Abiis iyo walaalkiis weynayn waxayna u arkaan inuu yahay doqon aan waxba tarayn. Arisu isagoo ka caraysan guriga ayuu soo baxay. Wuxuu la kulmay labadiisa saaxiib ee ugu dhow. Midka hore waa Karube. Waa wiil xooggan oo timo huruud ah leh, wuxuuna ka shaqaynayay baar. Laakiin maanta nasiib xumo ayay u tahay, sababtoo ah waxaa shaqada laga ceyriyay kadib markii uu la dagaalamay nin kale oo gabadh uu la haasaawayay uu ka watay. Midka labaad waa Jota. Waa wiil degan oo AT-ga ku shaqeeya, laakiin isagana dhibaato ayaa haysata. Wuxuu lacag ka soo saaray bangiga, wuxuuna u dhiibay hooyadiis oo dhibaato dhaqaale haysata, taasoo ka dhigtay inuu niyad jabo. 3dan saaxiib ee nolosha ka dhacsan waxay isugu yimaadeen isgoyska Shibuya. Haddii aan aadi lahayn dal qalaad oo aan cidnana aqoon, miyayna fiicnayn, ayuu yidhi Arisu. Waxay bilaabeen inay ku kaftamaan in magaalada ay zombie dadka dhintay ee nool qabsadaan si ay uga raystaan shaqada iyo dhibka. Si lama filaan ah, Karube ayaa Arisu dhabarka ku qaatay, waxayna bilaabeen inay dhex ordaan gawaarida dhexdooda iyagoo qaylinaya oo qoslaya. Darawaladii ayaa carooday, shil yar ayaana dhacay. Booliska ayaa soo baxay oo filimbiga u yeeriyey. Orda! Booliska soo socda. 3dii saaxiib waxay u carareen dhanka suuliga tareenka dhulka hoostiisa mara. Way ku dhuunteen iyagoo qoslaya oo neeftu ka turaayo. Laakiin si lama filaan ah, iftiinkii suuliga ayaa damay. Codkii dadka iyo guuxii magaalada ayaa hal mar aamusay. 3dii saaxiib way yaabeen. Maxaa dhacay? Korontada miyaa goday? Si taxadar leh ayay albaabka u fureen. Waxay u soo baxeen bannaanka. Waxa ay arkeen ayaa noqday naxdin iyo argagax. Isgoyskii Shibuya ee daqiiqada ka hor buux dhaafay hadda waa cidlo. Hal qof ma joogo. Baabuurta way yaalaan, laakiin dadkii way ka dhex maqan yihiin. Magaaladii oo dhan waxay noqotay magaalo jinni. Dabaysha ayaa qaadaysa waraaqaha dhulka daadsan. Telefoonadooda ayay eegayaan, laakiin signalka ayaa go'an. Dadkii aaway. Ma dhulka ayay galeen ayay isweydiiyeen. Inkastoo ay cabsi jirto, Arisu wuxuu dareemay xoogaa farxad ah. Haddii dunidu ka harnay anaga keliya xor ayaan nahay, ayuu yidhi. Habeenkii ayaa la gaarayay. Magaalada Tokyo waa mugdi marka laga reebo hal dhisme oo ifaya. Shaashad weyn ayaa soo qortay, ciyaartu waxay bilaabanaysaa goordhow. 3dii saaxiib waxay raaceen falaarta iftiinka, waxayna galeen dhismahaas. Waxay arkeen miis ay saaran yihiin telefoono. Fadlan qaado hal telefoon ayay fariintu tiri. Markii ay qaateen telefoonka ayaa wejigooda aqoonsaday. Cod kombiyuutar ah ayaa yidhi. Wakhtiga diiwaangelinta waxaa ka haray 2 daqiiqo. Waxaa soo gashay haweeney la yiraahdo Shibuki. Waxay u muuqataa qof wax badan og. Waxay tiri, markaad xariiqdaas dhaaftaan dib uma noqon kartaan. Wax yar kadib, gabar yar oo ardayad ah oo aad u naxsan ayaa soo gashay. Wiishka ayay raaceen. Waxay galeen qol xiran. Telefoonka ayaa soo qoray. Heerka ciyaarta 3 u baxa. Nooca noolow ama dhimo. Qolka dhexdiisa waxaa ku yaala 2 albaab. Albaabka midig noolow. Albaabka bidix dhimo. Wakhtiga 2 daqiiqo. Jota ayaa telefoonkiisa la soo baxay oo bilaabay inuu duubo isagoo u haysta inay tahay barnaamij TV. Laakiin xaaladdu waa dhab. Shibuki waxay tiri, waa inaan dooranaa albaabka saxda ah. Qiiq culus ayaa qolka soo galay. Gabadhii ardayada ahayd way xiiqday. Ma sugi karo ayay ku qaylisay. Waan baxayaa. Waxay furtay albaabka ku qoran noolow. Argagax. Iftiin casaan ah ayaa madaxa kaga dhacay. Gabadhii ardayada ahayd isla markiiba way dhimatay, dhiiggeeduna wuxuu ku firdhatay wejiga Arisu iyo saaxiibadiis. Jota wuu qayliyey. Karube wuu naxay. Tani ma ahan ciyaar caadi ah. Waa geeri. Shibuki ayaa markiiba furtay albaabka kale ee dhimo. Way badbaadeen waxayna galeen qolka labaad. Laakiin wakhtigu uu sii yaraanayaa. Hadda waxay haystaan 1 daqiiqo iyo 50 ilbiriqsi. Qolka labaad. Isla xaaladii. 2 albaab. Shibuki waxay tiri, ciyaarta nuxurkeedu waa in qof naftiisa biimaya si loo ogaado albaabka saxda ah. Karube ayaa xanaaqay. Yaa baxaya markan. Adiga tag. Shibuki way diiday. Wakhtiga ayaa sii dhammaanaya. Jota wuu gariirayaa. Arisu oo ah wiil maskax badan balse argagaxsan ayaa dhulka fadhiya. Karube ayaa darbaaxo kulul ku dhuftay Arisu. Arisu. Adiga ciyaaraha ku fiican. Ka shaqaysii maskaxdaada. Darbaaxadaas waxay toosisay Arisu. Maskaxdiisa ayaa shaqaysay. Suug. Ayuu yidhi Arisu. Markaan dhismaha soo galaynay waxaan arkay baabuur BMW. Arisu wuxuu bilaabay xisaab degdeg ah. Baabuurkaas dhererkiisu waa 4.9 mitir. Dhismahani wuxuu u eg yahay inuu leeyahay 20 mitir. Qolalku waa 4 geesood. Wuxuu sawirtay qaabka dhismaha. Albaabka saxda ah waa kan midig. Karube iyo Jota way aamineen. Waxay fureen albaabka midig. Way badbaadeen. Waxay sii dhex mareen qolal badan iyagoo raacaya xisaabta Arisu. Laakiin qolkii ugu dambeeyay. Arisu wuu istaagay. Albaabkii waa xiran yahay. Derbi ayaa halkan ah. Wakhtiga wuu dhammaanayaa. 30 ilbiriqsi 10 ilbiriqsi. Dab ayaa ka soo baxaya dhulka. Arisu wuxuu xasuustay fideoga Jota. Jota. Ii dhiib telefoonkaaga. Wuxuu daawaday fideoga. Wuxuu arkay in qolka gabadhu ku dhimatay uusan ahayn qol buuxa. Halkan ayuu ku qayliyey Arisu. Albaabka saxda ah waa kan aan u malaynayno inuu qaldan yahay. Way ordeen. Dabkii ayaa qabsaday lugta Jota. Wuu ooyay xanuun dartiis. Karube iyo Arisu ayaa soo jiiday. Waxay ka boodeen albaabka ugu dambeeya waxayna u dhaceen bannaanka.
waxay yaalaan dhulka iyagoo nool balse aad u daalan. Telefoonka ayaa soo qoray. Hambalyo. Heerka waa dhammaystirteen. Bisa 3 maalin. Waxay arkeen nin da ah oo meel ku dhacay. Ninkii wuxuu yidhi waa dhammaad. Fisadaydu maanta ayay dhacaysaa. Isla markiiba leesar casaan ah ayaa samada ka soo dhacay oo madaxa ka dalooliyay ninkii. Saddexdii saaxiib waxay garwaaqsadeen xaqiiqada qaraar. Dunidan cusub si aad u noolaato waa inaad ciyaartaa. Haddii fisadu kaa dhacdo waad dhimanaysaa. Haddii aad rabto inaad noolaato sharcigu waa mid qura waa inaad ka qayb gashaa ciyaaraha dhimashada. Arisu, Karube, Jota iyo gabadha cusub ee Shibuki waxay dhex socdaan waddooyinka cidlada ah. Korontada magaalada oo dhan way tagtay. Baabuurta ma shaqaynayaan. Taleefanada tifiyada iyo wax walba oo elektaroonig ah way dameen. Waxa kaliya ee shaqaynaya waa raadiyo duug ah oo aan u baahnayn internet. Jota wuxuu xasuustay maalintii masiibada dhacday. Markii hore ayuu yiri Jota, irka waxa ka dhacay dhawa. Kadibna korontada ayaa tagtay. Waxaan u malaynayaa inay tahay weerar xagga irka ah oo burburiyay dhammaan qalabka elektarooniga ah. Waxay heleen dukaan furan oo aan cidna joogin. Gaajo ayaa haysay, sidaas darteed si degdeg ah ayay u qaateen cunto iyo biyo. Markii ay caloosha buuxsadeen waxay dareemeen xoogaan nafis ah, laakiin cabsida ayaa weli taagan. Shibuki, gabadha ay la kulmeen, waxay sheegtay inay xafiiskeeda joogtay markii dadku waayeen. Shibuki waa qof khatar ah. 3 maalmood ka hor ayay ciyaarta soo gashay, dhammaan dadkii la joogayna way dhinteen, iyada kaliya ayaa badbaaday. Taasi waxay ku tusaysaa inay samaysay wax walba si ay u noolaato. Arisu wuu yaaban yahay. 3 maalmood ayuu isweydiiyey. Anaga shalay uun baana ugu dambaysay dadka. Sidee waqtigeeda iyo keenna u kala duwan yihiin? Jota lugtiisa ayaa aad u xanuunaysa. Gubashadii ka gaartay ciyaartii hore ayaa sii xumaanaysa. Dhaawacu wuu sii qoyanayaa, xanuunkuna wuxuu noqday mid aan loo adkaysan karin. Habeenkii Arisu iyo Karube ayaa si gaar ah u wada hadlay. Waa inaan caawa ciyaarnaa, ayuu yiri Karube isagoo sigaar cabaya. Fiisada waa noo dhammaanaysaa. Haddii aan guulaysano waxaan heli karnaa dhakhtar daweeya lugta Jota. Arisu wuu ka walwalsan yahay. Ciyaaruhu waa dhimasho iyo nolol. Laakiin ma haystaan dooq kale. Haddii aysan ciyaarin way dhimanayaan. Haddii ay ciyaaraan waxaa laga yaabaa inay dhintaan, laakiin rajo yar ayaa jirta. Maalintii xigtay markii qoraxdu dhacday, dhismo weyn oo dabaqyo ah ayaa si lama filaan ah u iftiimay. Waa halkaas ayuu yiri Arisu. Waxay galeen dhismaha. Gudaha waxaa ku sugan ciyaartoy badan oo wajiyadooda ay ka muuqato cabsi iyo walwal. Qof walba wuxuu eegayaa qofka kale iyagoo isweydiinaya, tolowkan ma ii noqon doonaa cadow mise saaxiib. Waxaa meesha soo galay dad cusub. Usagi, gabadh timo gaaban oo aad u firfircoon. Aguni, nin weyn oo murqo waaweyn leh, uuna la socdo wiil yar oo gacan yare u ah. Rishiya, wiil timo cad leh oo dhagaha ka xiran sameecado aadna u aamusan. Si lama filaan ah, taleefanada ayaa wada dhawaaqay. Fariin ayaa shaashada ka soo baxday. Heerka ciyaarta 5 jeeg. Nooca ciyaarta orod iyo joogsi. Karube wuu naxay. Kaararka jeega waxay u taagan yihiin awood jirka, ayuu yiri nin koofiyad xiran. Deemanta waa caqli. Wadnaha waa tan ugu xun. Waa ciyaar ku dhisan khiyaano iyo in la isdilo. Sharciyada ayaa la soo qoray. Waa inaad ka carartaan bahalka. Waa inaad heshaan qolka badbaadada 20 daqiiqo gudahood. Haddii waqtigu dhammaado, dhismaha oo dhan wuu qarxayaa. Ciyaartu way bilaabatay. Arisu, Karube iyo dadkii kaleba way kala carareen. Dhismaha waa mid mugdi ah oo ay ka buuxaan qolal badan. Si lama filaan ah. Rasaas. Nin wejiga u xiran yahay oo wata qori weyn ayaa ka soo baxay geeska. Waa bahalka. Rasaas ayuu ku furay dadkii. Hal qof ayaa isla markiiba madaxa laga toogtay. Dhiig ayaa derbiga ku daatay. Carara. Wuu ina leynayaa, ayuu qof ku qayliyey. Arisu iyo Karube waxay galeen qol iyagoo neeftu ka xiran tahay. Argagax ayaa qabsaday. Muxuu ahaa kaas, ayuu yiri Karube. Waa dad qalato. Usagi, gabadha timaha gaaban, waxay muujisay xirfad sare. Derbiga ayay kortay waxayna si farsamaysan uga dhuumatay bahalka. Dhismaha dhexdiisa dadkii waa la ugaarsanayaa mid mid. Dhiigga ayaa qulqulaya. 5 qof ayaa horay u dhintay. Arisu, inkastoo uu cabsanayo, haddana maskaxdiisa ayaa shaqaynaysa. Wuxuu fiiriyey bahalka. Suug. Dhagaysta. Bahalku wax fiican ma arki karo. Maaskarada ayaa ka hortaagan aragga. Isku sheega meelaha uu joogo. Waa inaan wada shaqaynaa. Hadalka Arisu wuxuu gaaray Usagi. Iyaduna waxay bilowday inay ku qayliso meesha uu bahalku joogo si ay dadka u badbaadiso. Wuxuu joogaa dabaqa labaad. Ka leexda dhankaas. Laakiin waqtiga wuu sii dhammaanayaa. 8 daqiiqo kaliya ayaa hartay. Aguni, ninkii murqaha lahaa iyo kooxdiisa qorshe kale ayay wataan. Wuxuu u yeeray wiilkiisii yaraa. Orod, ayuu yiri Aguni. Soo jiida bahalka. Wiilkii yaraa wuu orday si uu bahalka u mashquuliyo, laakiin Aguni waxba ma samayn. Wuxuu daawaday wiilkii oo la toogtay. Wuxuu ahaa doqon. Karube wuxuu arkay arxandarradaas. Wuxuu qaatay dube wuxuuna go'aansaday inuu bahalka fool u waajaho. Arisu, adigu raadi qolka badbaadada. Aniga bahalkan celinaya. Karube wuxuu u orday dhanka bahalka isagoo qaylinaya. Dagaal gacanka hadal ah ayaa bilaabmay, laakiin bahalku waa mid aad u xoog badan. Karube waa la dhaawacay. Arisu wuxuu ogaaday sirta. Rasaasta wuxuu mar walba ridaa marka uu qof arko. Laakiin mar buu riday iyadoo qofna uusan joogin. Arisu wuxuu eegay qolka rasaastu ku dhacday. Waa halkaas. Qolka badbaadada waa halka uu difaacayo. Arisu iyo Rishiya, wiilkii timaha cadda, ayaa hal mar wada gaaray qolkaas. Waxay fureen albaabka. Qolku waa mugdi. Si lama filaan ah, qof ayaa gadaal ka soo weeraray. Qolka mugdiga ah dhexdiisa, Arisu iyo wiilkii timaha cadda ee Rishiya ayaa is hortaagan. Albaabka ayaa la furay, laakiin cidna ma arkaan. Si lama filaan ah, Rishiya wuxuu soo bixiyey qalab koronto. Bahalkii ayaa soo galay qolka isagoo qorigiisa kor u haya. Rishiya isagoo degan ayuu korontada ugu dhajiyey bahalka. Bahalkii wuu gariiray, jilbaha ayuuna dhulka ku dhuftay.
Arisu wuu naxay isagoo la yaaban geesinimada iyo qabowga wiilkan. Laakiin bahalku si fudud kuma dhicin. Inkastoo koronto lagu dhajiyey, haddana wuxuu kor u qaaday qorigiisa, rasaas ayuuna ku furay Jishiya. Jishiya si degdeg ah ayuu u giringiraday, Arisuna wuxuu ku dhuuntay qol yar oo gudaha ku yaal. Albaabka ayuu xirtay, neeftuna way ku dhegtay. Isla markiiba nalalka qolka ayaa shidmay. Arisu wuxuu arkay laba badhan oo derbiga ku yaal. Shaashad ayaa soo qortay. Si ciyaarta loo dhammeeyo waa in labada badhan la wada riixaa isku mar. Arisu wuu argagaxay. Labada badhan way kala fog yihiin. Qof kaliya ma riixi karo. Karube ayuu Arisu ku qayliyey isagoo u cararaya balakoonka. Aawi. Halkan kaalay. Bahalkii wuxuu jebiyey albaabkii qolka Arisu. Burbur ayaa soo daatay. Bahalku wuxuu soo galay qolka isagoo qorigiisa ku fiiqaya Arisu. Arisu wuxuu dib ugu gurtay derbiga isagoo dareemaya in dhimashadiisu timi. Si lama filaan ah. Usagi, gabadhii timaha gaabnayd ayaa daaqada ka soo booday. Derbiga ayay ka soo dhacday sida bisad oo kale, waxayna haraati xoog leh ku dhufatay bahalka. Isla waqtigaas, Aguni, ninkii weynaa ee murqaha lahaa, ayaa albaabka soo jebiyey. Wuxuu qabtay bahalka wuxuuna ku dhuftay derbiga. Arisu wuxuu eegay waqtiga. 5 ilbiriqsi. Qabo badhanka ayuu Arisu ku qayliyey. Arisu iyo Jishiya oo soo kacay ayaa isku mar riixay labadii badhan ee derbiga. Ciyaartu way dhammaatay. Hambalyo. Dhismuhu wuu aamusay. Qaraxii la sugayey ma dhicin. Dhammaantood waxay ku neefsadeen nafis. Laakiin sheekadu halkan kuma eka. Bahalkii dhulka yaalay ayuu Aguni ka qaaday maaskarada. Qof walba wuu naxay. Ma ahayn bahal. Ma ahayn robot. Waxay ahayd gabadh. Gabadh bini'aadan ah oo ilin ka socoto indhaheeda. Wejigeeda waxaa ka muuqda cabsi iyo rajo beel. Waan ka xumahay ayay tiri iyadoo ooynaysa. Waa inaan sameeyaa haddii kale aniga ayaa dhimanaya. Arisu wuxuu arkay wax qoorteeda ku xiran. Waa koor bir ah. Koorka wuxuu bilaabay inuu dhawaaqo. Gabadhii waxay eegtay Arisu indhaheeda oo baryaya. Aawi. Ka hor inta uusan Arisu waxba samayn. Dhiig ayaa ku furshaxay wejiga Arisu iyo Karube. Karube inkastoo uu gariirayo wuxuu baaray jeebka gabadha dhimatay. Wuxuu ka soo saaray raadiyo. Raadiyowga waxaa ka soo baxay cod. Halkan waa xeebta. Jawaab. Lambar 59 ma dishay dhammaan ciyaartoyda. Soo laabo. Arisu wuxuu gartay xaqiiqda qaraar. Kuwani bahalo ma ahan ayuu hoos u yiri Arisu. Waa dad. Waa ciyaartoy nala mid ah. Ciyaartan waa midna iska hor keenayso. Si aan u noolaano waa inaan dad kale dilnaa. Karube wuxuu eegay Arisu. Xeebta ayuu yiri Karube. Waa inaan helnaa meeshaas. Jawaabta oo dhan halkaas ayay taal. Ciyaartii hore way dhamaatay laakiin naxdintu ma dhamaan. Arisu, Karube, Jota iyo gabadha cusub ee Shibuki waxay ogaadeen xaqiiqo qaraar. Si aad u noolaato waa in aad ciyaartaan. Si aad u ciyaarto waa inaad naftaada halis gelisaa. Jota, wiilkii lugta ka gubnaa, xaaladiisu way sii xumaanaysaa. Gubashada ayaa infekshan noqotay wuxuuna u baahan yahay dawo iyo nasasho. Laakiin waqti ma haystaan. Fiisadooda ayaa dhacaysa caawa. Haddii aysan ciyaarin, laser cirka ka soo dhacaya ayaa madaxa ka toogan doona. Waa inaan aadnaa meel la yiraahdo xeebta ayuu yiri Karube isagoo sigaar cabaya. Waxaan maqlay in halkaas ay tahay jannada badbaadada. Laakiin marka hore waa inaan caawa noolaanaa. Habeenkii ayaa noqotay. Magaalada Tokyo oo dhan waa mugdi marka laga reebo hal meel oo ifaysa. Waa beerta dhirta. Waa goobta ciyaarta caawa. Waxay galeen beerta dhirta. Miis weyn ayaa yaala dhexda. Miiska dushiisa waxaa saaran 4 qalab oo madaxa la gashado iyo hub kala duwan, mindi, baangado iyo qalab wax lagu jaro. Hiro qalabka ayuu yiri cod ka soo baxay sameecadaha. Markii ay xirteen muraayadaha indhahooda waxaa ka soo muuqday nidaam casri ah oo indhaha raacaya. Haddii aad qof kale indhaha ka eegto, nidaamka wuu dareemayaa. Si lama filaan ah, taleefanada ayaa dhawaaqay. Heerka ciyaarta 7 wadnaha. Nooca ciyaarta la dhilaha iyo wax dhilaha. Arisu wadnaha ayaa gariiray. Wadnaha waa ciyaarta ugu xun. Waa ciyaar lagu ciyaaro dareenka dadka. Sharciyada ayaa shaashada ka soo baxay, waana kuwa naxdin leh. 4 qof mid kaliya ayaa noqonaya yey. 3 kale waa ido. Haddii yeygu uu eego ishii ido, doorka yeyga wuxuu u wareegayaa qofkaas. Marka waqtigu dhammaado 15 daqiiqo kadib, qofka yeyga ah kaliya ayaa badbaadaya. 3 ido ah. Koorarka qoorta ugu xiran ayaa qarxaya. Aamusnaan argagax leh ayaa goobta qabsatay. Caadiyan ciyaaraha waa in dad badan badbaadaan mid dhinto. Laakiin caawa, saaxiibada isjecel mid kaliya ayaa noolaanaya. 3 kale waa inay dhintaan. Doorkii ugu horeeyay ee yeyga waxaa helay Jota. Isla markii ciyaartu bilaabatay, Shibuki, gabadha khiyaanada badan, ayaa fahantay qaanuunka. Waxay eegtay Jota. Indhahoodu way isqabteen. Shibuki ayaa noqotay yeyga. Waan ka xumahay ayay tiri Shibuki, wayna carartay iyadoo ku dhumanaysa dhirta dhexdooda. Hadafkeedu waa inay kaliya noolaato oo aysan cidna indhaha ka eegin ilaa waqtiga ka dhamaanayo. Karube xanaaqa ayaa madax maray. Wuxuu qaatay baangad weyn. Soo laabo ayuu ku qayliyey Karube. Kuma dili doono, laakiin doorka yeyga ii dhiib. Karube wuu ayrsaday Shibuki. Arisu isna wuu raacay isagoo isku dayaya inuu dejiyo saaxiibkiisa. Karube, jooji. Waa inaan hal kale raadinaa. Laakiin Karube dheg jalaq uma siin. Wuxuu eryaday gabadhii wuxuuna ku qabtay gees. Shibuki way qaylisay, laakiin Jota ayaa si lama filaan ah u soo baxay oo Shibuki qabtay. Jota wuxuu eegay Shibuki. Jota ayaa noqday yeyga. Hadda Jota ayaa ah qofka badbaadaya. Laakiin lugtiisa ayaa xanuunaysa, ma ordi karo. Shibuki waxay isku dayday inay sasabto, laakiin Jota wuu diiday. Arisu ayaa soo dhex galay. Wuxuu eegay Jota. Arisu ayaa noqday yeyga. Karube wuxuu ku qayliyey Arisu, ii dhiib doorka. Aniga ayaa raba inaan noolaado. Aniga ayaa ugu xoog badan. Arisu wuu naxay. Saaxiibkiisii ugu fiicnaa ayaa raba inuu dilo. Arisu wuu cararay. Wuxuu galay kaynta cufan isagoo gariiraya.
wuxuu isku dayay inuu koorka qoorta uga xiran iska bixiyo. wuxuu isticmaalay qalab biibito iyo wax walba laakiin koorku ma furmayo. wakhtiga 5 daqiiqo ayaa hartay. Arisu wuxuu ku dhumaalaysanayaa geed gadaashiis. Si lama filaan ah cod ayaa ka soo baxay sameecadda dhagaha. Waa Karube, laakiin Karube ma xanaaqsana. Arisu ayuu yiri Karube. Ma xasuusataa markii aan baarka fadhinay? Waxaan ka hadlaynay riyooyinkeena. Anigu waxaan rabay inaan beeraley noqdo. Jota wuxuu rabay inuu shirkad sameeyo. Arisu ilmo ayaa indhihiisa soo buuxisay. wuxuu xasuustay maalmihii quruxda badnaa. Markii ay rashka daawanayeen. Markii ay wada qoslayeen. waxay ahaayeen guuldaraystayaal adduunka dhabta ah, laakiin halkan waxay ahaayeen walaalo. Arisu wuxuu gartay waxa dhacaya. Karube iyo Jota ma rabaan inay doorkayaga ka qaataan Arisu. labadoodu waxay go'aansadeen inay dhuntaan. waxay go'aansadeen inay dhintaan si Arisu u noolaado. Maya ayuu Arisu qayliyey. Karube. Jota. ii soo baxa. ma rabo inaan keli noolaado. waa inaan wada dhimanaa ama wada noolaanaa. Arisu wuxuu bilaabay inuu waasho. wuxuu dhex orday kaynta isagoo qaylinaya. Karube. xaggeed joogtaa? Jota isna wuxuu qabtay gabadhii Shibuki. wuxuu xoog ugu hayay dhulka si aysan u ordin oo aysan Arisu u arkin. adiguna waad dhimanaysaa ayuu Jota ku yidhi Shibuki. laakiin ugu yaraan keligaa ma dhimanaysid. wakhtiga 10 ilbiriqsi. Arisu wuxuu dhex taagan yahay beerta. wuu ooyayaa, cidna ma arko, waa yeega keliya ee taagan. Fadlan. ayuu baryay. Fadlan ha dhimanina. 1 ilbiriqsi. 3 qarax oo isxigta ayaa dhacay. dhiig kulul ayaa wejiga kaga fardhatayay Arisu. cadar dhiig iyo hilib gubtay ayaa hawada qabsaday. Karube. wuu dhintay. Jota wuu dhintay. Shibuki. wuu dhintay. beerta way aamustay. Arisu wuxuu fiiriyey cirka. wuxuu furay afkiisa waxaana ka soo baxay qaylo aan bini'aadan ahayn. qaylo ka timid nafta gunteeda hoose. Arisu dhulka ayuu ku dhacay. wuxuu waayey saaxiibadiis. wuxuu waayey sababtii uu u noolaan lahaa. hadda waa keli. waa guulayste laakiin waa mayd socda. shaashadda ayaa soo qortay. hambalyo. laakiin dhiiggii saaxiibadiis ayaa ku reebay xusuus iyo murugo. sheekadu halkan kuma eka. waxaa weli dhiman ciyaaro badan oo xiiso leh. sidaa darteed nala soco kana taageer janalkan adigoo sabskrayb saaraya. nabadgelyo.